السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا ومارين عقارن مانتا تاريخ وعيتاي جناي لباتيكو لودا كون لباتيكو سوق مانتا آديات بيقونا سنة مومنتم في عم بيجري shan shirkadood baan gatay oo u badnaa kuwa ka shaqeeya daawooyinka soo saarista oo dhanka caafimaadka healthcare sector kuwa ku magacaabaan oo biotechnology u badnaa baan gatay dhammaantood oo ka faa'iiday waxaa shirkadaha waxay kala ahaayeen symbolkooda ADTX CLSN PPIG GENE iyo ADXN kii ugu faa'iido badnaa wuxuu ahaa PPIG oo $4,000 ah kii ku xigay wuxuu ahaa Jim buu ahaa waxaa ka faa'iiday $1,900 waxaa ku xigay ADTX $570 waxaa ku xigay ADXN $180 iyo ugu dambeeyay oo ahaa iyo asaa ugu dambeeyay ADXN ka ugu dambeeyay $180 ah waxaa ugu dambeeyay CLSN oo $120 profit ah marka shantaas shirkadood ayay ahaayeen alxamdulillah waa kada faa'iiday dan hal iyo labo meelaha I think ku jirta laga faa'iidays ahaan loo qaadan karo haddaan dul istaago ugu horeynta waxaan fiirinaynaa isla arkaynaa resistance levelka meelaha ugu riski yar inay ka mid tahay oo u fiican in laga gato hadda video waan balagareynaya let's listen. Anyway معناها waxaan ku gatay resistance levelka let's play again as soon as aan gatay waxaan ku gatay $7 and 12 cents laakiin resistance levelka wuxuu ahaa $6.86 markaan saas u gatayba isla markii uu taabtay 6 to alif aan ku gatay uu soo yutan buu soo noqday markii waxaan galay minus $1,000 markuu istaaga uu aad u dheereenayo resistance levelka marka aad spike tahdid sometimes wuu kaa tegayaa oo qasab ma ahan meesha aad ku gadatay aad tiri waa ku gadanaya aad systemka u sheegtay inuu mataqaanaa ku gadanaysa maaha micnaha 686 markuu joogay baan gatay laakiin slippage baa dhacay kor buu aaday isla markiiba marka hadduu dheereynayo istaaga dhib inta badan dhib ma keeno because waa kor buu soconayaa uptrend waaye anoo kaas aan filaya waxba kamaanan biqin waxaa filaya kor inuu soo aaday because shaararka ujeedas inay soo noqonayaan let's watch again. was seconds by seconds about $1,000 baan ka faa'iiday move kaas waana wax kalena ma ahan waa resistance levelka oo aan ka gatay ba isaaciday resistance levelka oo aan ka gatay area isaaciday iyo company-ga oo istaaga oo kor u socday volume-ka waa ka garan kartaa halkan hoose uu soo badanayaa mar ka dambe marka kor aadayo aad ba loo soo badanayo you can tell in mataqaanaa isbedel jiro oo hadduu mar dhaafay 686 because 686 important level buu ahaa halkan uu ka soo noqday dadka waxay ogaayeen inuu meeshaan uu ka soo noqdo mar so everybody wuxuu eegayaa this area daatu ka soo noqday about 30 minutes kor buu ka soo noqday this another chance hadduu markaan meeshaan dhaafo kor buu sii aadaya meelaha that's a tricks dadka isticmaalaan waay oo resistance levelka hadduu mar ama laba jeer soo gudbay mar hore uu sheerkana uu aad u soconayo oo fiican yahay mar saddexaad soo taragareeyo uu gudbaya ama mar labaad
hadda intuu ayuu markii halkan bay ahayd markii labaad it was here mar saddexaadkiina waxay ahayd here so taas baan ogay anugu inuu laba jeer uu noqday actually laba jeer waa saddex jeer badee halkaan uu kasoo noqdo halkaan guudka mar buu taabto soo noqdana actually waa 3 times waay buu soo gudbay ama buu gudbi waayey mar afraadkii waxaan everybody wuxuu eegayay filinayay inuu mar afraadka uu gudbayo so xoog buu ku dhaafay waa jiiray si xooli ah buu u dhaafay waa jiiray halkaasna janis baa laga helay ma weystaagay 686 buu ka gudbay ilaa wuxuu gaaray ilaa 9 ilaa wuxuu gaaray 941 buu gaaray ilaa 940 cent areas buu gaaray buu kasoo noqday ilaa haddana hoos buu jiraa hadda wuxuu marayaa 6.35 that was the first mataqaanaa aan isleeyahay muhiimka ay leedahay qofka meel u yaqaan inuu ka gataa fiican qofku waa inuu ka gataa meel riski yar qofku waa inuu ka gataa meel us lacag ba ugu luus gadee hataa yutan usoo biyo us lacag ba ku luus gareenin iyo inaa geetay sheerar kambani ana sheerkiisa geetay soconaya maana meel cidla inaad tagtid aad tiraahday kana sheerka aan kambaniga aan jeclahay oo waa wax soo saar fiican maaha meesha wax jecel lagama yaqaano ya wax jecel meesha lagama yaqaano just waxa waaye jecel kama shaqeeyo meeshan waa inaad gadataa wixii markaa soconaya ya wixii markaa soconaya oo dadka dhan ay gadanayaan oo momentum leh this is momentum trading style waaye momentum trading mataqaanaa volatilityga baa keenaysana mataqaanaa meel dad badan joogaan volatility wuu jiraya mataqaanaa up and down up and down up and down up and down taas baa mataqaanaa faa'iido ka helaysaa marka meelaan dhaqdhaqaaqi jirin suuq fadhiya inuu wax ma ka maaha inaad alaab geysatid okay BBIG baan gatay 712 buu ku fadhiyaa BBIG meeqa ka dulqaadi doonaa waa iska iibiyey 1300 dollar ii sheegaya meeqa marayaa 5010 dollar 510 wow waxaan eegaynaa ayadana cilad kaloo timaada marar badan oo ah inaad tiraahdo mar daata waxaan soo aragnay inaad tiraahdo buy baa dhehaysaa meeshuu marayay markaas ma meel ka koraysaa buy ku gelaysaa hadda waxaan arkaynaa another mataqaanaa problem yimaado oo markaas sell tirahdid oo lacag fiican aratid exactly price waxba isbedelayo oo markaas sell tirahdo system markuu galo isbedel baa ku imaanaya sheerkii waxaa markaas uu systemka uu recognize gareeyo ama garto sellkaaga wuxuu markaa jeego buu kaaga gadayaa ama baa ku iibsanaysaa ama ku sell garanaysaa iska iibin ka dhaa micnaha let's watch so let's see now waxaan ku gatay $7.44 baan ku gatay which is another resistance level area 744 baan gatay resistance level waa 751 laakiin waxaan aaminsanahay uu kambanigan saamigan kor aadaya maanta dhan cabaar aadiyo momentum fiican oo jiro so xogaa yar baan ka hor dhacay marka waan ugu talagalay hor dhacaas si kas baan usoo biyey soo ilaafin because daytu maray dhaafay daas baan ogaa waxa second time ku dhaafino maadaama kan uu fiican yahay xogaa yar systemka waxa ka hooseeya resistance level about 750 areas waa 744 baan gatay about 7 cents before baan buy ku wari this will happen so waxaan u jeedaa calculation waxaan u jeedaa $240 faa'iido ah inaan hadda seladan gadaay laakiin ma dhacayso is 100% gartid ma ahan
was waxaan internet ba lagu shaqeeyaa sometimes delay baa jira ilbiriqsi wax ka yar ilbiriqsi 20 jir loo kala qiimay qayb yarisa baa delay yar baa dhacaya wixii baa isku aaday waynaya it's not 240 now $6 profit بنقطة هل سنتي كلية يحكون شير وهالكي شير بقول هل سنتية بين كفاية مركا داس وحيلها هي ما هذا واي oo qasabtayna inaan qofku ka war hayo cilada timaado waay all the time marka that's what happened markaan iska gadayba waa U-turn buu suubiyey kor buu sii aaday that's another mataqaanaa qofku inuu ku xisaabtamo oo isaga ka shaqeysta ama rabo inuu ka shaqeysto waxaan internet ba lagu shaqeeyaa just mataqaanaa ma ahan maqaaxi cunta ka dalbanayso kale ma ahan internetkana ma ahan haddii waxoogaa delay ku galo waa lacagta kaaga lumaysa ilbiriqsi 1 second oo 20 jeer ama 30 jeer loo kala qaybay mid qayb ka mid ah baa haddaad delay noqotid nabaday waay lacag baa ku dhaafaysa ama lacag baad khasaaraysaa marka taas another waxa waaye casharka noo tahay alright si shalay nagu dhacda maraba bullback baan sugayaa I have to be careful dheeraanayaa oo ujeedaa laakiin si shalay nagu dhacda mar rabo awed a pullback ya ama guudkaas hadduu dib u noqdo oo greenkaas oo dhaafaya abiluf dhaafaya kaas waa dhaafaya let's see inaan janis ka heli karno meeshaan pullback baan sugaynaa waxa scanner ka muuqdo dhan on the right side of screen waa BBIG so let's see now waa gatay 744 bigu fadhiya waa galay this is the time waa kaas ayaa maraya 50 watt waa ka qaadaya waa siga hoos baxay 240 uu sheegay maybe 240 waaye maybe less no it's nothing ما بحب فائدة كمان كمصوبين marka ciladii hadda ka hadlay move-kayga video saddexaad qaybtan saddexaad hadda aan tusayo waa markii ku xigtay waaye same problem ay qabsaday baqdinta qofkii ku dhaw istaag markaan gadanayo marka I mean baqdin ma baqo waxas I don't think so inay rasul saxtay bilaan baa tahay cabsi way imaanaysaa just mataqaanaa waa nature wax weyn ma ahan marka baqdinta badan baqdinta mararka qaar kuu imaanaysa waxaa qaadanaysaa go-aamo khaldan marka this is same problem waaye way qabsaday halkaa markaa 759 ku gatayba isla markii ima dhaafin oo isla markii meel fiican ma gatay isla markii kor buu kacayba 210 buu ii sheegay markiiba si assistant wuxuu sheegay $448 profit ah markaan sell eriba waa suurtooweysay $90 baa iga luntay halkaas markaas $90 baa iga luntay halkaas so this is the spot haddaan sugi lahaa haddaan sugi lahaa intaas buu kor buu socday laakiin ma suginayo waxaan ka baqaya inuu soo noqonayo baqdin aad baan uga baqsanaa oo darbaxada iyo wixii shalay ugu dhacay baan aad u xasuusanaa isla markiiba sell baan waxaan hayay midnaa 2 second camal isla markii 400 buu ii sheegay 440 san buu ii sheegay buy baan iri I
ama sell baa eri waxa isku aadi waayey hoos buu soo dhacay stable ma ahan mararka qaarkood saamiyaasha waxaa jira sas buu u dheereynaya waa isbedelayaan marka so eridan waa erida anigu labada jeer oo intaan lacag ii sheegay lacagtii noqon weysay waa eridan waaye see this area color garaysan waaye waa same area waaye waa areas waaye between 740 all the way about 757 camal areas area labada jeer aan ii surtoo weysay marka waxaa way dhacda waxyaalahan way dhacdaan laakiin markuu istaaga aad u socdo waxba isla big deal lacagta hadda $90 waa kii hore $60 waan ka faa'iiday actual $30 negative hadda labada kala jiray only $30 bay noqonaysaa waa dheereynaya wallah this is going fast galay $8.16 ugu fadhiya halkii sheer meeqan ka dulqaadi doonaa markaan waa iska iibinayaa meeqa dulqaadayaa 1700 ii sheegaya systemka ma runba is that right oh yes oh yes oh yes it's a brand new day wow marka halkaas maraayo 6330 aan ka hayo waxna waa BBIG wax qeylanaya it's amazing it's amazing right look at that it's gonna turn عمل way see it's just up and up and up so 915 buu maraya and 88 ma uga haraaniga so sababta uga haran waxa way arawan salaan ba waxay ugu dhacday aan lacag badan intaan 6,000 suubi ban almost 2500 iga tii shalay anoo ka duulaya وانا wixii ku soo maray ku aqal qaada sidaa daraadeed ma aan daba ordin ma aan ceelsanin even though daa ceelsan lahaa lacag ka soo bilan aad u dheereynay kan laakiin back in my mind shalay baan ma taqaanaa aan xusnaa ma taqaanaa waxa ka yeeraysa macnaha tii shalay iyo ku dhicniyo slow down so that's exactly what I done that's exactly what I've done I slow down that means 6,330 by had the marisa so I can relax I can eat breakfast I can watch Pasadir brand new episode Pasadir by man so so I can watch it right I can chill anyway I have to wait until Jan's get hello so how منطقة أنا إرسل مع BBIG if hadduu gudbo xataa waxaan dhihi karaa suuq haddaan ka baxay look adigu taraagarayn u gudbaa dal mar kale aan taraagaraynaya brief nu gudbi kala dhici karaysa 877 aan ujeedaa 9 to 1000 buu gaaray maxaa u diiday 9 to 1000 inuu gaaro hadduu marka 9 to 1000 gaarana 11 uu gaari karaa because إلى مقارك اللوك وجود بكرة في هذا خلق عن كذا كرانية لكن ما كبقايا وجود بكرانا قد وجود بيا سجنا أكاسا قد ودنا تراجرينيا
gudbayaa. Anyway, hadda gudbayaa fiiri. سو تتراجع أرجو تتراجع يعني بقول بقى مسلمين وعرّي هذانا. But there's a lot of confidence. شامية that بدن كفاية. So a lot of people like me they taking break, but a lot of people متقانا or well experienced or taking a lot of risk or short الأورهداية باين الأورهداية لو إنك عيارة باجرة or well experience يا مركا. so وانا كو حسابتن تا خبرتاada ku xisaabtan hada khibrad ku xisaabtan meesha aad taqaanid ku gado meesha aqoon uga har saada u gudbaya is good just look bakan akasa 10 cent to dhaafay soo noqdana marka. Anyway, I'm happy today. It's good day 6381 week aan wuxuu ahaa waan taqaana week inna caadi ahayn. I believe waxaan suubiyey Monday the first اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة يومان خميس أربعة خميس. I believe over 20,000 I should be or 30,000 almost for 4 days. Sometimes waxaad mataqaana isleedahay just watch just like movie oo kale chartiga markuu xaraka badan u leeyahay you enjoy mataqaana soo u soconayo soo ordaayo you enjoy a lot. على كل حال maanta suuqa aad buu u fiicnaa 6900. I hope inaad wax ka faa'iidaysateen. haddaan nagu cusub tahay fadlan subscribe leh ana notification daaro. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.